السلام عليكم وحن كرر لقلني يا دمان شعبي الصوماليات مال والبود جوكتان لايف كوران سوقل أنا قصان هرين كوكو شيء أنا جو هردو وحالا نشغيل هنا شفتي أيام مركز ساكا لايف كبا حي أيام سيحدي تليفون كي مقابن وانا اسكا سيحدي تليفون با يقول صوت عياد وغيرني مركز قبر با يهيد كنو المقالة كسمايو waxay la wadaagtay warbixin aad iyo aad aan mataqaana uga argagaxay aan islahayn xilligan bay waxa soo kala dhacayaan oo ay waxaan umada Soomaaliyeed maadaama xilligii dagaalka ahliga ahaa iyo dagaalkii qabaliga ahaa la soo maray wixii ogaantay dhaceen isma lahayn maanta waxa soo kala dhacay niyadayda kuma jirin dad Soomaaliya waxa ka suurtoobayaan waxaasi maxaa weeye gabadhi waxay la wadaagtay ninka Axmed Madoobe u qaabilsan qaarijinta iyo qaraxyada iyo dilalka ee qaalid lagu magacaabo ee ciidanka Axmed Madoobe naba sugidda ku sheega haysto ee dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Kismaayo dhameeyay jigjigana dad ku soo laayay ee qaalid la yiraahdo ayaa wuxuu weeraray guri nin shalay isu dhiibay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe 8 sano la shaqeynayay صاحبي هايين كدي مركو قرواقصدي إن واحد أحمد واتو iyo waxa meesha yaalo ay sanahay wax soconaynin ninda la yaraa maadaama uu ahaa wuxuu garwaaqsaday mustaqbalkiisa inta ka badan inuu isku baabi'in karin oo dhuxul cusub saarto oo dawladdiisa ku biiro dadkiisana dhinac ka raaco tan labaad ninka asaga waa ninkii gudoomiyaha balad xawa ka ahaan jiray hooyadii iyo caruurta oo asaga dhalay iyo walaalihiina bulaha way ku noolyihiin كليجي با فريستون مال فكره وحيري ورهاده احمد فلنكيسي waa dhamaaday war wala doogi yala dacaron tasho maanta hooyada dab kuma shidi kartid Soomaali oo dhanna kama hortagi kartid umadii dagaanka degreena Axmed ma rabto Soomaalina ma rabto dawladina ma rabto wax walba oo asaga watan wax soconaya ma ahna ka danayso dhalinyaro ah tahay ka xeeladayso ninka wuxuu si dhibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markii la maqlo waa isdiibay illa fiiri doqontu ma taqaano waxyaalo waxa jira dunida laga xishoodo oo arada umada Soomaaliyeed iyo caalamka uu gubko ah qofka markaa siyaasadda isku diidantiin dagaal leen ka dhaxeeyo caruurtiisa iyo gurihiisa laguma laabto waa birimagaydo gurigiisa baa la weeraray ilaahi amarkii wiilkii qola la hadasho Axmed dhaqankiisa taqaanay asna waa yaqaanay wiil oo asaga dhalay oo adigu weeshan teenage ka ah oo 18 miya lagu sheegay Mr. 12 baa lagu sheegay oo bah kala ah oo gabadhan hadda xaaskan cusub aan ahayn oo guriga jooga waa laga xiriiray xaafad kala la geeyay gabadhii uur kala hayd oo culug yar oo baby ah haysato iyo uurna lah dhowr bilood ah ayaa guriga loogu yimid qori baadkiis iyo liifkiisa laga daalay way ku istaageen wixii guriga yaalay ee TV ahaa iyo laptop ahaa iyo jaakad ahaa iyo suud ahaa iyo gaari ahaa waa qaateen waxayna u sheegeen wiilka inay dili doonaan oo aabihii ay u dilayaan umada Soomaaliyeed waxaan weydiinayaa nin siyaasi ah wiilkiisa ma loo dakan karaa annaga ogsoon maanta nimanka amiirada al-shabaab ragga u waaweyn dadka qarxinayo in caruurtooda magaalada Muqdisho ku noosho annaga ogsoon soo marnay ragii wax adduunka ugu xumaa Soomaaliya ugu ba ka sameeyay kulmiska noqday Ethiopia isu dhiibay caruurtoodii xaaskooda dawladdu waa bilays oo dawladda kale cadawna u galay Axmed Madoobe marka dhaqan ugu ah Soomaalida ugu ka ah tan iyo 91 kala isdagaalayay wali qolo Soomaaliyeed hawiye darad bal dagaalamay wax gabar dil lama arag أنا هذا إذا عديني واحد قبر دلي لما أعرف واحد قبر كفصة لما أعرف واحد ناقور لدلي لما أعرف واحد عرور دلي لما أعرف أنا أحمد وضواهي درجة لقو قاري مايو وناقل لقو قاري مايو حلي أي كحمد مجرنا قبائلات السود قالي أو دقالك أهلي قال صمري قوب جوك بان واحد ولي ما نعرف لودنا واحد قبلها دلي واحد ناقها دلي ما نعرف نقل كان ماشا لقا كيني إيا ماشو نكا كليمت umada Soomaaliyeed baa weydiinaya waxay markaa hadda ku raad joogan oo ay ceyrsanayaan oo laga qarinayaa
wiilkii u dhalay ninkii isdhiibay ee asaga ugu magacaabnaa wasiir ku-xigeenka cabdiraxmaan cawr waxaan leenahay axmed oo inu baraha bulshadaan dhex fadhinaa adduunkaan u dacwoonaynaa dowladda federaalkaan u dacwoonaynaa ilaahu markhaati ka ahow soomaaliya ay markhaati ka ahow wiilkaa yarka ah oon adiga kuu shaqaynayn shaqo kugu lahayn ee soomaaliga ah magaaladiisa ku nool ardayga ah hadday ciidamadaada sida caadada u ahayd ay wax gaarsiiyaan oo caawa dharag u dhinto annaga axmed oo adaan ku haysanaa adaana kugu xisaabinaynaa buugtii dadka aad dishaana gelinaynaa buugtii dadka aad gashay ayaynu gelinaynaa ilaahay baan ku dhaartay markaan soo kacayay xitaa taleefonka aan ku soo qoray meesha aan ku soo qoray soomaaliyey oo aan ku soo qoray wallahi baana garanayn hadalka aan ku hadlay inaana garanayn waan yaxyaxay waa tirtirayaa messengerka waa tirtiray messengerka waa tirtiray messengerka waan tirtiray waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed la wadaago haddii ay dhacday dagaalkii ahliga ahaa ee hawiya daarood dagaalamayay ee 91kii ay dadku judbaysnaayeen gabdhaha iyo carruurta iyo waayeelka lama diri jirin bermageyda ahayd lama taaban jirin far lama saari jirin meel walbo ay soomaali joogto waxaa arrin ugub ah aabbaha waa ila shaqayn waaya iga tegay in gabadhi loo dilo in naag uura loo garaaco guri loo bililaqaysto nasabnimo ma aha soomaalina ma aha dhaqan aan naqaanana ma aha waxaan ka digaynaa hadday meesha wax un caqli ku jira ay joogaan wax odayaal ay joogaan wax xishoonaya oo soomaali waa isu soo noqonaysaa oo la xisaabtamaya ay joogaan gabadha aad disheen ee guriga ku dhex taalamta isbitaal geey gabadha aad disheen ee uur kale isbitaal geey xaalna ka bixiya iyo xumayn obolojays ka bixiya guriga aad bilaqaysateen iyo gorgoradaha qaadeen ee jaakadaha iyo shaatiyaasha la baxdeen waa haddii dad caqli leh ahlu caqli leh ay joogaan u malayn maayo dad ahlu caqli leh joogaan waayo kama dhacdeen waxaasoo kale dad isceshanayo isqabanayo hadday joogaan waxaan rabaa axmed inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ee deegaanka jubbaland degan kama guurayso soomaali kama guurayso soomaaliduna waxay tiraa xaaqanka iyo dhulka xaaqankaa dhammaanaya soomaali kama guurayso ilaahay baa meeshaa makansiiyey ku nooleeyey way joogaysaa adna waqtigaaga waa gabagabo cimri taga ceeb ha ku sugontin cimri tagay ayaad ceeb ku sugontinaysaa rag waa isdiriraa rag waa kala tagaa siyaasada waa lagu kala tagaa laakiin carruurta laguma laama jirin adoo argagixiso ah maxkamadaha ah oo kismaayo rag joogaan haystaan baa carruurtaadii ilmahaaga joogin ilmaha adeer ku tahay waxma adilan adige arxanlaa waa tahay xasan turki ciyaalkiisaa joogay lama taaban jirin cid taabanaysa ma jir dhaqan baa jiray soomaalina baa jirtay waxbaa celinayay hadduu nin mooryaana ku tala xumaado ummaddu waa isqabanaysay nabadoonnaa jiray dhaqan baa jiray soomaalidu ay lahayd bermageyda ah waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed meel walba joogaan kuwa qaarkiin soo fariisanaya baraha bulshada ee axmaqyada ah ee nasabka aan ahayn ee aan sharafta lahayn ee aan karaamada lahayn ee shahaadasuuliinta waxaan ugu baaqayaa waxaad ku hadlaysaan ka fiirsada war ma ninka naagaha uur kala garaacaya war ma ninka guryaha bililaqaysanaya war ma ninka shaatiyada bililaqaysanaya war ma ninka dadka carruurta cayrsanaya war ma ninka naagaha uur kala dilaya badda xeebta ka soo qaadaya ayaadna leedihiin saaka waa nin fiican war awey dadkii asaga ehelku ahaa war awey familkuu ka dhashay war awey ilma adeeradii war awey qabiilkiisii war awey cala shucaac adeerkiisi cala shucaacow halkaan gaarsiiya war soomaaliya halkaan gaarsiiya war cala shucaacow soomaali ahaan baad u hadashaa shalay cabdi ilay markuu ku cayrsanayay oo ilmahaagii qaawinayay oo bannaanka soo dhegayay gurigaagii idaacaddaad ka hadashay idaacaddii baad ka hadashay waad soo bandhigtay maantay kismaayo ka socotaa in adeerkaabaana samaynayo cala shucaaca gaarsiiya odaga cala shucaaca haddii wax yaroo caqligaa ku jiro haddii wax yaroo garashaha ku jirto cala shucaac ha la gaarsiiye arrinkaa shalay tay ahayd nin weyn oo oday ah adeerkii ah cabdi ilay adeerkii ah
intuu siyaasad isku fahmi waayeen mucaarad ka noqday ayuu inta gurigiisi tegay buu ciyaalkiisi ta qaqaawiyey oo yiri waa baahan yihiin ayuu raashin u qaybiyey waa dhaqankii xagga ka jira waxan war cali shucaaca wixii adig kugu dhacaan lagu dhacay war dhaqankan inay uu sameynaya kismaayo ka socdo war caruurtii waxa lagu sameynaya waad aragtaa war naagii baa la kufsanayaa war xeer Soomaali ma ahan war dhaqan ma ahan ninkan adaa ehel isu xigtaan adaa jifa isu xigtaan ummadda ka qabo ka xaal bixi oo ummadda kala xaal waxaan meesha dhacay shalay adig kugu dhacay haddii kale oo raalli ka taala shucaaca soo caday ummaddu soo caday annagu cid kale oo la hadla ma garanayno cumar xiili la hadli mayno ina cali sokor la hadli mayno waxaan isleenahay waxaan ay ku dhaceen xanuunkeedii garanayo cali shucaaca baa ka jiro jigjigo fadhiya cali shucaaca gaarsiiya u sheer gareeya war cali shucaaca wixii shalay kugu dhacay ee ilmahaagii lagu qaqaawiyey ee naagtaada uurna banaanka lagu soo dhigay ee calafiyada banaanka lagugu soo dhigay ayaa ina haysto oo wiilka adeerka u tahay lagu sameynaya oo caruurtii gabdhaha uurka la diraya oo dhalinyarada cayrsanaya oo aan leeyahay aabihii baan dirirnay oo aabihii baan iska hornimaan u leeyahay war cali shucaaca uu arrinkan ka soo hadal oo ummaddii waxaan ka qabo oo dhaqan Soomaaliyeed ma ahan waa dhaqankii amxaarada waxaan waa dhaqan qof islaam ah oo damiir leh oo dadka inay xisaabtamayaan in la isu soo noqonayo in Soomaali ay dadkan kala gurin in walaal la yahay in dhaqan soo jireen aynu leenahay og hadaa tahay oo aan saan filayo kollayba anigu ma arko kollayba waxaan kala hadlo oo Kismaayo iyo Dhobley jooga ma arkay cali shucaaca war hadduu allaha alla yahay dhibtaasaan haysto war gabdhihii baa la xoogayaa war dadkii baa la qaawanayaa war dadkii baa banaanka la soo dhigayaa waxa sameynaya kuwii shalay jigjiga kugu sameynayay ayaa sameynayo oo Khalid ka mid yahay maarajaaga ahaa ee booliska ahaa new booliska ahaa oo dadka dilayo oo nagaha uurka la badda geynayo oo gabdhihii garaacayo oo ninkan mucaaradka isku nahay siyaasadda ilmihiisa la baabi'inayo gurigiisa la galayo oo gabdhaha uurka laga soo ridayo annaga markaan caqligeena fikirnay garashadana ka shaqaysinay tani waxaan niri waa tii inay uu cali shucaaca ku sameeyay oo dadku caay ku soo fariisanayay oo ilmahaaga inta dharka ka dhigo dambasta mariyay banaanka u soo dhigay gurigaagana banaanka u soo dhigay loogu caay tiibaa ina haysato adigu uu ka xishoodo inay leeyahay tullimu kaaga xishoodo waxba daagta uurka kaama dirin tan dil baa yaalo wiil yar baa la cayrsanaya oo 17 jir ah oo maanta dhuumanayo oo leeyahay aabaha muxuu dawladda u galay aabaha muxuu isu dhiibay marka waxaan rabaa bal inaan ka wareysano qof nagu qaali ah ummadda Soomaaliyeed qaali ku ah waddankan wax badan u soo joogtay waayo arag hala shargareeyo waayo arag ah bal ummadda Soomaaliyeedna wax ka og xilliyadii hore waxay Soomaali ahaan jirtay dhaqankeeda soo ahaan jiray siyaasadda la isku diido waxay ahaan jirtay qof garanayo inaan helnaa rabnaa Soomaaliya lambarka aan soo qoray ee aan halkaan soo dhigay bal lambarka asaga ah laga soo waco qofkii wax garanaya anigu hurdaa laga soo ka soo ambaxay ka soo kacay hurdu ayaan ka soo kacay hala shargareeyo hurdaan ka soo kacay waa la yakiciyey hadal dhiilada ha yimid hadal dhiilada ayaa walaalayaal yimid waxaan ka argagaxan arkay dhaqan Soomaaliyeed ma arag diin islaam waxaan kuma arag meel ay waxaan nooga jiraan oo ummadda Soomaaliyeed uga jiraan walaalayaal ma arag waxaan hala shargareeyo walaalayaal hala shargareeyo war Soomaaliya arrinka asaga ah kasoo tala bixiya kasoo tala bixiya arrinkaas waa arrin lagu xasaasi ah waa arrin aan la tacajabno la yaabnay oo meel aan ka aragnay aan weynay waligay intaasaan xamar joogay intaasaan jubba joogay intaasaan gada joogay intaasaan baydhabo joogay
intaasoo gobollada kala joogay. Salaamu calaykum. Halo. Salaamu calaykum. وعليكم السلام. war walaalay aniga hurdaan lay soo kiciyey. ninkii shalay isa soo dhiibay buraha waa iska soo dhiibay. gurigiisi baa loo dhacay gabadhii uur leh oo dhowr bilood ah ilmo yar oo ama taqaanaa saqiirana haysatay ayaa lagu bilaabay. gabadhii waa la jirdiray, gorgoradii waa laga carursaday, laabtoobyada waa laga carursaday, tviyada waa laga jabsaday. wiil yar oo 17 jir oo ninka dhalana waa la cayrsanaya, marba guri baa lagu qarnaya caawa Kismaayo dhexdeeda ah. waxaan sameynayna waa ciidanka Axmed Madoobe. dhaqankaas Soomaaliya muku aragtay weliga adigu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يكون معرض بغن كاسو على غير قناة شردلك هوس نعيبك حلالينك عبرنك إثيوبيا على غير قناة صوماليا ما بقى قناة حتى صوماليا دان الدولة إيماننا نقول مع الزمنك ملح لها هاي محل إلى جاي معارك كعنديك أو كعنديد بان نقاني كعنديد مركب رجول الله حلو يا قول ولا تجري يا وحقب سنجري يا حرحري يا جري يا رسول الله ومصيبه كانوا مصيبه مركب وحمق لجري نن محل إلى معك محي بحبوا على شيء أنا يلقوا على الناس والقصتني إيه المكوى على شيء ما قاري وعلى أحمد الله دافع بين جهاد اللي قصوا قلي ومحالي إلى كينا أيتر محالي إلى ورشدنا هذه قاعد كاين قلتك أنت أسكبت أسبوع وعلي كريه إنه خبرها إيو قبلها أمورها إيو قبلها أور كريه عرضها إيو كبهاني كاينو عيسدو دنبو مولي يسوني بالنكو والنكو يسوني ماذا وحبا يالان نكانا يسوني دنبا الله شيئا maxaa la yiraahdaa kuwa maxaa la yiraahdaa aanu bixiyo isag madargayaasha naaxiyaasha laga naaxi waayey ee Ankara jooga ayaa been sheegay oo dal ka mid yahay ragga dal ka mid yahay ee maxaa la yiraahdaa isag qoladii sunna wal jamaa isku soo sunna wal jinna u baxshaan weeye aruursatay dalina ku haysa anaga garabkaaga taagno waxaan isla kaayay yiraahdaa maxaa jifahada baa la yiraahdaa ما هو يروي هو يروي صبر ما هي الرجوي رجو كلام ما هي اركي دوك ما لا بس عدي نو عيني بقى غفرن اسكت عند ساكن علي لا ايش ماشي بقى فضع عيش انا وكياتك ما كان عن قبلده مندرا مندرا شعب وين يرى كان يا معرض مين يا كان يا كجر كجر قبل برا يسوع اسماعيل كجر هبحن هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام magacaaga halka naga soo ceyso kuma adiga yaa muqdisho jooga walaal taageerayaasha nabad iyo nolol walaalow igu jir marka ha ka bixin ku jir ha ka bixin lujo aad iyo aad Soomaaliyay waxaan u maleynaya raalli ahaada barwlujo ku soo celinaya raalli ahaada waxaan la yaabanahay waxaan wax nagu cusub oo ummadda Soomaaliyeed ka cusub oo dhaqan Soomaali ahayn oo meel ay ka timid aanan garanayn ayaa ummadda Soomaaliyeed ku socdo war Soomaaliyay fadhiga laga kaca waxaan nala arka waxaasa ummadda haysatee halo salaamu calaykum nin la dilo nin baa loo dilaa waa dekanadii nin dameer haantiyey xagee diidis loo dooranaya nin la dilay nin baa loo dilaa waa dekanadii raggu waa isdirri jiray waa la dagaalami jiray waa siyaasadda loo kala bixi jiray waa la isqaban jiray maxay tahay waxaan meelay ka jiraan bal noo sheega waa yaabana anaga salaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga halkaad naga soo wacayso magacayga waa Axmed Cabdi Cali waxaan ka soo wacayaa degmada Tagay gobolka Sool maxay tahay meeshii dhaqanka iyo daraawiishtii baad joogtaa ee Kismaayo arrin ugu baa ka dhacday ninkii Axmed Xulaysta ahaa nin wasiir asaga ahaa oo ka fakaday dawladda isku dhiibay carruurtiisa iyo naagtiisa buu garaacay gurigiisana waa jabsaday arrinkaa weligaa ma maqashay dadka barbageedada ay xaasaska in la qabsado
walaal arrinka weligay ma maqal intaan garaad kale ma maqal hadda waxaan ahay nin dhalinyaro oo ilaa dhowr iyo 10 jir ah 19 weligay ma maqal yani nin wasiiro oo yani arrintaas in xilhayo arrintaas ugu dhaqmiya يعني ودقن حنوي ودقن حنو مددن كسو قردي dadkan يعني سياسيين تشيغانيا صح maxaad ugu baaqay Axmed Madow maxaad u baaqay nin siyaasi oo ka fakaday oo siyaasadda kugu diiday caruurtiisa iyo ilmihiisa inaad qabsato soo aragtaa والله والله أنت لا نحوي أحوي يعني كدر وي عاد يا عاد بمهسية كسوحها طلع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله أرنك أوقف كوكس ما يكاد عيسى دورتها aad iyo aad baan ula yaabanahay aad iyo aad wax loola tacajabo halo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة magacaaga halka naga soo wacayso Fadhiya warsana wala tiir hada suuda ma ka soo wacay walaalay arrin ugu ah oo ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo xilligii gubo daraawishtii wixii ka horeysay aan Soomaali ka dhicin oo ugu ah magaalada Kismaayo ka dhacday nin kamid ah gacanyaraashii Axmed Madow oo ka fakaday oo dawladdu isku dhiibay ayay xalay Axmed Madow ciidankiisii u dhaceen gabadh xaaskiisa uur ah oo dhowr bilood ah oo cunug yar oo ma taqaanaa mujuqa haysato ayaa guriga loogu dhacay gabadhii waa la jir dilay calalladii waa laga gurtay wiil uu dhalay waa la cayrsanayaa waa la dil rabaa aabihii baa loo dilayaa arrinkaa meel ka dhacday ma aragtay weligaa may wallahi walaal weligay waxaa ma maqan laakiin waxa yaqaanay ninkii maxay ahayd kireerka haysan jiray ayaa xasuuqaaya ka daba tagaaya waxa yaqaanay wadanka maartay wadanka gumaysiga laga yaqaanay ayaa waxa yaqaanay wadankan waa Soomaali wadad islaama wadada isu samra wadadan caruurta iyo waxyaabaha ka caagan dagaalka si walba hadii la isu dilo waxa dagaalka ka caagan ba waa caruurta iyo dumarka ragga iyo ragga isbsada ma garatay صح marka ninkaasi wuxuu dabada hayaa maxay ahaydey wuxuu daba socdaa inay ilayo sheekadiisii uu daba socdaa ninkaasi wuxuu u baahan yahay in laga gaaro shacabka maxaad asaga kula talin lahayd maadaama aad tahay gabar Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd bal asaga taa qaadanaya isagu tala isma qaadanaya tusbax kumana oo dheer boqorta gashadayo wuxuu isleeyahay cidi kaama fiicina nin maxay ahayd wadan islaam oo wadan Soomaaliyeed oo baaba'ay oo sida la arkay nin dhiigiya uu isle oo Soomaaliyeed ma waxay timada ku jireen noloshaas oo kale dawladana muu diideen dadkiisana dhibaatada uma horseedeen nin wax haysta oo hadli kara oo wanaagsan ay sumabu arkeen ninkiisa sidoo eegay sidoo ekaan jiray markuu arko nin Soomaali noloshaaba kuma jireen ninkan waa nin bilaadiga waa nin Ethiopian waa nin Kenyaati wax siiyo waa nin istubida weeyaan la talinayaan aad bal ma sida uu ceebay rag uu ceebay aad iyo aad anu waa yaabanahay bal Soomaaliya ka soo tala bixiya ninkani adduunyada dhaqankani meel ay ka jirtay reer waqooyi iyo reer koonfurow Soomaalida way isbedeshay Ethiopian dhaqankiisii bay qaateen Kenyan dhaqankeedii bay qaadatay Soomaalidii caanaha geela iyo dhiiga iyo Soomaalinimada lahayd ma jirto imika waa Soomaali wada bedelantay marka Soomaalida ay 4 iyo 5 nin baa joogay inta dhiiga leh wanaagsanina maxay hay'ad maxay waa laga batay oo isbedelkii baa yimid waa laga batayba marka kuwan imika imaaraadka ka tashanaya waxaan ku sheegaynaa iyo kuwan dawladii labada nin leerka shiday militariga sameeyay Soomaali magaceedii soo celiyay ku daba go'ay bal ma isharx ma yiraahdaan anagu waxaan dhisaynaa dhakhtarro bilaasha waxaan dhisaynaa caafimaad bilaasha waxaan dhisaynaa wadooyin bilaasha markaana doorta bal ma yiraahdaan wax lagu doortay wax wanaagsan may soo dhigaan maxaa labada nin daba dhigay aad iyo aad baad mahadsantahay
والصوماليين السلام عليكم ورتلافك اسكفوقي ورتلافك اسكفوقي تلافك اسكفوقي يا كاديس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مدنها صوص مغلويني كقدب هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجاهد محمد علي وكسلام يا وأنا اللي راه نبض الصلاة رجب الله رك اسماعيل وردب قاعد تعداد لك اسماعيل طهي دبعتها ساعة أمتك اسماعيل كذا عضي نن أحمد مدوو شقيني أحمد مدوو كتك كعر على دولة سكولي بي دقن كان صوماليا مالو كجرو سياسي بحي أو سياسة دي سي مصلحة دي سر هالسدي إن عرورتي سي جورجس يقبل يقورنا اللي دلو عرورت لا بعصده جورج لا بابيو وحاس دقن كحاجة لقى يغنى. horta maxamedow horta waa mahadsantahay barnaamij qurux badan baad daadihinaysaa ummadda soomaaliyeed way ogtahay kismaayo khaasatan jubbaland gobolka dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan qolooyinkan raskaboniyiinta ah waa saxoo dhaqan soomaaliyeed iyo dhaqan diin dhaqan muslim iyo dhaqan gaal midnaba kuma taalla in dad bermageyda ah la baacsado aan ka ahayn raskaboniyiinta dhaqanka nooca waa dhaqan tigree ah waxaa laga soo min guuriyey kilalka shanaad waa hab dhaqankii cabdi ilay uu ku samayn jiray gobolka ciidamada iyo saraakiisha kismaayo joogtana sidan ognahay waa ciidamada halkaa laga keenay nabad sugidda ninka haysta jubbaland waan ognahay waa ninka la yidhaahda khaalid ninkii jeel ogaadeen dhibaatooyinka xasuuqa ugu baanaa gobolka dadkiis ka geystay buu ahaa ninkii baa taliyaha nabad sugidda jubbaland ah kismaayo uguma horeysa habmaamuus nooca dadka gobolkaa degan lagu sameeyo waxaa ka horreysay dad la laayay ee ah siyaasiyiinta axmed madow kasoo horjeeday ee nabadoonada ahaa salaadiinta ahaa coqaashi ahaa ama dadka waxgaradka ahaa waxaa jirta niman siyaasiyiin ah ee xildhibaanada kamid ah jubbaland oo isaga xariray gobolka markay arkeen qaabka harbeegsiga ama shacabka qaabka loo laaynayo xamarka iska galay oo ilaa hadda kuraasidooda dhowr ama 4 sano 5 sano cid bedeshay aysan lahayn marka waxa hadda ugub dhacdo ubug ma ahan dhacdooyin soo dhacayo baa qayb ka tahay أحمد وحوك عام بحي أبدوب وحوك عام بحي دل وحوك عام بحي كفسي وحوك عام بحي واحد يراهد ذاك إلى الله مسافرية ولك كمد قبل كقبل كمد الصومالية قف موادن قبل كمتولي ولا شيء مركو تقول الوضع هاي يا قبل كان كتقانا حكيت السجداء قبل قتاي إربور هذا كبير كره أكور جبل أنا كهل مركا ما الشلة واحد عمين تاريخ سوقر ميسي وقت بدل سعودي بيهد أحمد قبل كعدباتي كوكستي أو كوكستي وحمانتي شلة بلاودي معهن ورت أنت دمتي قبل هذا وقت بيسي أما دباتي كوكست أنت ورت أنت دباتي كسوقات الله وبوقديو أنت كحنت كوب حين وحواي الله قلنا حريصته كل بوحواي يوم القيامة ما عندي لقاره وباين قفك تعمل كيسي وحيد دباتي لوجيت ما شاء الله أحمد ما يقدر فعل دوران أضي سوماليات باتاي أرهن أجوبها ما شتال رقم كان مال لقى كيني ولا لو رقم كان قرن مياه هذا كوربان حسوستانك على شعاعها يا أحمد أديركي هاي جد جوي عبد الله يسكت عين مركز يسكت عين أنت على شو عيالك سلوي يبدأ لقاوي أو درك اللي قدقي أو لو حي أو بناك لقي حد هدي أصلي عور يسكت عين وعور حيرة يستي يرد يرانا هاي وذا قبل كي سبع أي أدون كلنا عي سومالين كحيرة يستي مع عرورتي سي عيالك سبع أنت يا قبل أور كلا قرا عدقن كان سومالي ده ورياه وحن حكي وحن لقى كينه dhaqankaas waa dhaqankii dadkii tigreeda ay tababartay ay ku tareen garaysay shacabkooda inay ku xasuuqaan waa trainer ay bixiyeen tigreedii TPLF raggii haysan jiray Ethiopia saraakiisha ay tababartay waa gobolada hadda waxa haysto nin gobol kale ku dhashay oo gobol nabadoon ku dhashay meesha ma joogo marka meesha waxa jooga Ismaaciil waxa jooga waa saraakiishii tigreeda ay tababartay dadkii lagu tababaray dadkii waxa waa jeelashii dadka trainka ahaa lagu tareen garan jiray dadka inay dhibaateeyaan oo bir ku gubaan oo siliid ay ku gubaan oo dadkii hortooda dumarkii lagu hor lagu kufsado dhaqankii waa taqaanaa qaabkii lagu sheegay dadkii jeelalka ogaadeen ka soo baxay in xaaskaada lagu hor kufsan jiray in qofka mar alla markuu dhibaato ama uu yiraahdo war dhibaatadan aniga lagu haysto waa maxay dadka loo geysanay waa maxay gobolka la ka hadla dadkii soo loo soo qaban jiray la dhihi jiray walaasha hortaa ku kufso walaalka ayaa halkaa ka hadlay adii halkaa lagu hor kufsanayaa odiga meesha taagan gabadhiisa la dhihi jiray kufso ama caarada soo bax
marka dhaqankii dhaqan lamid oo baa kismaayo yaalla dhaqan ka gedisan ma yaalla malahan marka waa inan dadkii gobolkii deganaa ee jubbada hoose jubbada dhexe igada dadka waa in la baraarujiyo la dhiirigeliyo hubka ay qaataan iska dhiciya la yidhaahda canaasiirtan tigreeda ah ee gaxyaraha tigreeda meesha gobol ku haray marka maxamed oo meesha war kama yaallo dhibaatooyin fara badan baa gobol ka jiro aad iyo aad baa noo xunnahay saakii kismaayo waxa ka dhacay ilaa xali waxa ka dhacayay waa waxa loo baahan yahay in loo istaago oo qori loo qaato la iska dhiciyo maanta ma hadal ma yaallo maxamed oo meesha hadal waa dhaafay gacanka hadal bay taagan tahay in loo sameeyo dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo inaan inta damqanaysa Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa war gobolka hadal ma yaallo iska dhicis bay taagan tahay waxaadna haysta gobolka haysta dadkeena baardiinayo aniga hadda kula hadlay dadkay waa isaga carreen xamar ay wada joogaan khaasatan familkay waa isaga carreen dad la dhibaatay badan baa meesha ka jiro oo familkay kamid ah waxay u carreen waa amnigoodii dhaqaalahoodii way kaga baxeen guryahoodii waa isaga carreen marka dibka gobolka ka jiro dib la sheegi karo maxamed oo ma ahane waa dib u baahan ficil in loo bedelo haddaanan ficil loo bedelinna wallahi inana bay sheegaynin gobolka waxaa ka dhici doona dhul gariir aan caadi ahayn baa ka dhici doona dhibaatadan tigreeda ay ku hayaan marka meesha waxa haysta waa saraakiishii tigreeda khaalid baa meesha jooga taliyaan nabad sugidda ah waa ninkii dhihi jiray aabbaha iyo hooyada isla socdo gabadha dhihi jiray aabbaha gabadha kubso dhihi jiray hooyadana wiilkeeda ha kubso laa xawla walaa quwata illaa billah ku soco marka ninkii taliyihii nabad sugidda ay jeel ogaadeen ee dhihi jiray hooyada meesha taagan wiilka aabbahana dhihi jiray wiil gabadhaada kubso ninkii baa taliyaha nabad sugidda marka waxaad ka sugayso inaba ha yidhahdee maanta wax lala yaaba ma aha marka wax laga argagaxay waxaan la sheegi karin baa kismaayo ka jiro jubbaland dadka degan waa dad reer nabadeeda waaye dad reer dhibaata ma degano laakiin xoog dad lagu haysto waaye qori in lasaga kiciyo dad u baahan waaye mooye dad u baahan maanta in laga hadlo ma ahan marka waa in loo kaco dawladda ay u kacdo dadkaa laga dhiciyo canaasiirta ku gaabsatay tigreeda haraagii TPLF haysto in laga kiciyo axmed iyo canaasiirtiis axmed wuxuu ahaa ninkii ahaa axmed godane ku-xigeenkiisa buu ahaa aasaasiya al-shabaab buu ahaa nin shacabkii maanta iyo qaraxyada iyo dhibaatada dadkii samayn jiray dadkii maskaxdii ka dambaysay buu ahaa marka al-shabaab iyo TPLF wax isku kaa dhaamaan ma laha intiibaa maanta tigreeda iyo TPLF baa kismaayo haysto intii iskaashatay baa kismaayo haysato waxay u baahay intii dadka laga dhiciyo marka maxamedow annaga waxaan ku baaqaynaa dowladda federaalka shacab baan nahay waa dhammaanay waxba nooma dhinno gabdhaheeni waa la kubsadaa habeenay maalin waxaa la geysaa badda xeetadii baa lagu kubsadaa boqolaal kun baa xabsiyada ku jira kismaayo ana laga warqabin boqolaal baa baadiyaha laga soo qabsadaa xabsiyada ku jira intii wax garanaysa waa isaga carareen gobolkii intii wax garanaysa wax fahmaysa oo aan baxsan karinna haddii qolooyinka afka duwan baa baadiyaha ay galeen qoryay qaateen waa lagu qasbay in al-shabaab ay ka dagaalamaan oo garab istaagaan haddii intii kale wax magaratada lagu shaqaysan jirin lagu shaqaysan karina haddii waa kuwa axmed madow hoos fadhiyo habeen imaanay mid loo qalanhayo marka gabdhii waa la kubsadaa xarada TPLF baa meesha ka dhisan tigree ah saraakiishii TPLF oo waxaa meesha jooga kasoo cararay isbedelka Ethiopia ka dhacay baa meesha jooga oo ugu horreeyay khaalid marka dadkaa waxay u baahan yihiin dawlad awood leh inay ka dhiciso hubkaan laga soo dhigo loo tarxiilo gobolladii ay ku dhasheen abdiiley iyo xabsiyada lagu celiyo bartaa la geey bay u baahan yihiin axmed inta lamid ahna waxay u baahan yihiin xamar la geey la xero marka maxamed oo dad badan baa qati ku jira aan sugaya iga dambeeyo marka meesha waxaa haysto TPLF al-shabaab baa haysto marka baaqayga waxaa waaye ugu dambeeya dowladda federaalka waa inay ka gaarto ummadda la xasuuqayo shacabka jubbalandna ay qoryaha qaataan oo iska dhiciyaan canaasiirta meesha haysato asalaamu calaykum wasalaam maxamed kusoco aad iyo aad baad mahadsantahay soomaaliya ha guulaystaan soomaaliya wada ujeedaan yarkan wax kaleba noo sheegayba wax kale ayuuba noo sheegay oo ah ya in ninkii dadka dhihi jira hooyadaa fuul wacalaykum salaam saare qaran halgamaasira soo dhowow ninkii dhihi jira hooyadaa fuul oo walaashaa fuul oo gabadhaadi fuul inta qoryaha ku qabta dadka dhihi jiray bal ilaahay baan idinku dhaariyay soomaaliya firi bal dadka annaga maanta dowladda inoo sheeganay oo inta mikrofonada qaata meelaha soo istaagay maxamed kuu salaamaya barnaamijkaagana aad baan u dhegeysanayay war arrin ugub ha nagu dhacday dhaqanka soomaaliya ma ka taqaanaa war dagaaladii soomaaliya soo mudhax ma ka taqaanaa bal ku soco waa kaas dhibkaas aan haysteen dhaqan ma aha dhaqan soomaalidu ma lahayn inay gabadh iyo cayaal iyo
laayaan qaybna dhaqan uma lahayn dhaqankaas wuxuu ka yimi Kenya iyo Tigray uu ka yimi Kenya waa arkaysay gabdhaha waxay ku kursadaan markay marayaan xadka xuduudka iyo Soomaaliya u dhaxeeya markay marayaan bay kursan jireen waa arki jirtay baa meesha maraya dhaqan la soo min guuriyo baa meesha maraya dhaqan Soomaaliyeedna maaha haddii xitaa dagaaladii ahliga dhacay xitaa gabdho loo faraxmayn oo wax saa lama yeelin gabadh uur le iyo waa wax laga wadaad iyo in macallin iyo waxaas inuu dhaqanka meelna lahayn marka dhaqan xun baa meesha ka socda dawladda waxaan ugu baaqayaa inay gobolka xoreyso bu'aalo iyo dhulka xoreyso bu'aalo haddii ay xoreyso ciidamadu waa anigu waxaan aaminsanahay hadday bu'aalo xoreyso ciidamadu inay ka soo yaacayaan ciidamada meesha lagu xoreysto xoog baa lagu haystaa xoog meel loo bixi karaan waayo xaggan hadday usoo baxaan al-shabaab baa laynaysa marka waxa weeye waxa danta ku khasabtay marka dawladda waxaan leeyahay gobolka bu'aalo ha qabato si ciidamadu ugu yimaadaan Axmed Madoobe la jooga odaygaasuna waa criminal weeye dilaa waa jaajuus Ethiopia Kenya u shaqaynaya oo akhbaarada Kenya waa qofkii dhageystay waxa ka sheekeynaya in Axmed Madoobe difaac u yahay ayay ka sheekeynaya way meesha dhigteen haddii Axmed Madoobe uu ka dhaco ama laga adkaado in badda Soomaaliya laga qaadayo ayay aaminsan yihiin waxa kaloo taariikh baa ka maqan Soomaalida oo waxa weeye ninkan huura dhalay dardaarankiisi waxa ahayd gobolada Jubbooyinka inuu qaato aaminso taleefanka meesha ku qoran haddaayna wada soo wacday ahalkii baa tahay taleefanka meesha ku qoran iga soo wac si aad warbixin nooga siiso ummadda Soomaalida oo la wadaagto qarqaris waa dhamaaday ashuuku adin waa dhamaaday banaanka maanta lagu wada hadlayaa ahal baad u tahay soo hadal hadday wada soo wacday lambarka hadda meesha ku qoran eber 7 8 6 eber 7 8 6 hal 6 4 9 7 4 5 iga soo wac ummadda Soomaalida u sheeg waxa meesha ka dhacay ee dhibaatada ahayd walaal marka adigu gobolka ka soo jeedaa Soomaaliya gobolka ka soo jeedaa anigu waxaan ka soo jeedaa Sool baan ka soo jeedaa Sool waxaan weligaa ma aragtay dhaqanka noocaan waxaan weligaa ma arkin waxaan ku maqli jiray jeelugaadeen ayaan ku maqli jiray idaacadahan ka dhageystay waxaan markii waxa weeye gabdhaha la xilxili jiray jeelkii weynaaye jisiga laga sameeyay baan ku maqli jiray waxa askarta meesha joogta waxa weeye waa askar laga keenay muxuu ahaa nimankii waxa weeye xabaashida la shaqaysan jirtay Tigreega la shaqaysan jirtay ayaa meesha jooga la yiri sida aan ku maqlay marka waxa weeye meesha tan dadkii lagu laynayo oo wax ma garan dadkii qof walba qofka aqoonna waa lagu dilay waa ogtahay oo meesha Kismaayo waxa ka dhacay waad iga waran tahay odayaasha lagu leynayay dadkii waxa weeye xabada dadkii la geynayay muxuu ahaa badda lagu hafinayay ummadda waxa weeye qof walba waa la dilay waxa weeye dhaqankii waxa weeye Tigreega ayay nimankan leeyihiin marka waxa weeye qofkii hadla ama idaacad yar ka hadlana Facebook yar wuxuu soo qora badda la geyn jiray oo waxa weeye halkaas aanu Kismaayo waa la hadlaa mar walba waa la hadlaa dad badan oo ehelay iga jooga marka waxa weeye meesha waxa kama jiraan ummadda waxa weeye jeelka laga buuxiyay jeelka meesha laga buuxiyay lama kala soocayo ummadii waa la laynaya gebigoodiiba hadday gobolka deganay hadday waxa weeye arrinta xaalad meel xun bay maraysaa waxaan weligan aan arag ay Soomaali lagu arag baa maanta meesha ka taal wallahi waxan baa ka dhacay waxan oo bilaaya baa ka dhacay waxa dhacday horta waxa jira maalintii la mudaharaaday Seeraar iyo ay xabadaha riday maalintii ka dambeysay 5 naagood oo waxa weeye suuqa wax ku ganacsanaya baa lagu dilay qaybna faash baa lagu dilay qaybna anu maalintaas aan la yaabay 5 naagood waxa weeye shantuba waxay ahaayeen maraxaan bay ahaayeen shantuba waxay iibinayeen qaybna qaad bay iibinaysa qaybna waa ganacsanaysay waxay ku jireen mudaharaadkii ma garanaysaa Seeraar soo garan maysa Seeraar bay ku jireen dabadna waxa la yiri waa la sawiray sawirkoodii baa la raacay nin baa soo dhaxgalay shacaba oo la soo dhigay naagii mudaharaaday uu sawir kala daalay dabadna iyagu ma oga maalintii ka dambeysay oo mudaharaadkii joogsay baa qaybna faash lagu dilay
qaybna waxa lagu dilay xabad dadka dhow kismaayo dhan waa ogtahay kismaayo dhan weydiyo waa ogtahay aad baan ku salaamayna waan yaabay anigu aad baan ku salaamayna waa dumar weeye dumar aad baan ku salaamayna dadka dumarka aad iyo aad marka ninka Axmed waxaan ku taajabnaya dawladda waxaan ugu baaqayaa ninka Kenya dabada geliyay hala soo qabto waa dambiile criminal weeye ninka waxba yaan hadal la gelin yaan hadal la kiisa oo ninka waxba laga sanfo hala soo qabto Soomaaliland ka samarto hala soo qabto aad baan ku salaamaya aad iyo aad Soomaaliya waxaan leeyahay arrin ugu baha dhacday waxaan ka daba geenayaa walaashay Muno hadda soo gashay oo halgabaa ah walaalay shalayto nin isu soo dhiibay oo waxa jiray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isu soo dhiibay Axmed Madoobe Gacanyaro oo ahaa ee lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cawir ninkii carruurtiisa iyo xaaskiisa meeyaradiisa magaalada Kismaayo deganeed guriga magaalada Kismaayo ka deganaa gawaari baa u taalay markii ay maqleen ninkii waa isdhiibay assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله. وحير هوليده وحير يجري يجري ولا حير هذا أنا هذلين. الملكي مغلى نكي نوسديبي أيا حالي نكي جل وقاعدين دتك واحد سوق جري. نني ولا شيء سفور ده جري. نني هويدي سفور ويلي هويدي سفور ده جري. دتك عذاب جري. ما رجعها. قدم كماش اللي أتكدا وتين ماش اللي يراهدو كسبع هاي هايتو. YouTube ka daawateen oo dadka ku cadaabi jiray oo magaciisa lagu magacaabo Qaalid tuuga ayaa gabadhii gurigeeda soo ciidan wato ka xishoon buu u galay gabadhii uur leh dhowr bilood ah wiil cunug yarna haysato way ku istaageen way ku tuntaan wax alla wixii u yaalay alaabana way qaateen kombiyuutarradii way qaateen baabuurtii waa jabsadeen waa la tageen gabadhina way jirdireen xitaa isbitaal maysan geenin way ka tageen waxaa ka booday guriga ka cararay wiil adeer asaga dhalay oo ninkan hadda cararay isdhiibay dhalay wiilkiisii waa la cayrsay marba guri baa lagu qarinayaa Axmed iyo ciidankiisa laga ilaalinaya arrinkaas ka dhacay ugubka Soomaali way diriraysay xilliya siyaasadda loo kala tagayay nin adiga ku shaqeynaya oo waxba ku geysan oo yiri aniga inta ka badan ma sii tagnaan kala go'doon maamul ay dawladda federaalka diiday maamul beelihii Soomaaliyeed diideen maamul Kenya ay gacanta ka tagto firqan ka istaagtay maamul aan soconayn maamul afar meel maadeer isku haysa ma saddex taanaan kala ceebteeda waan ka danaysanaya guriga hooyadeyna ma guba kaliya ka danaysto ka xanaadaystay in maanta carruurtiisa loo ceyrsado halkaas maanta Axmed Maraya reer heblow Axmed waka kuwa marka arrintaasi meel ay ka dhacday Soomaali hal la weydiyo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لي أرن أنا ما أنت ورد الله يسوعي قبل أن قرابنا هيسوع علي وحي قلت محمد وحواد عي أرن أجوب هذا علي قولوا جينيك عبد الرحمن ها أي عبد الرحمن عور قبل ده من يرد عود الجريت كويس كوده كم الجوجين يويل كوو جوجي أورنا إلى هذا ويل يرنا ده شويل وين وصقع بس إسكال كده تنا أود جوجي أيها وحصور إنك يا خالد دتك جدب ككوبا بيجي دتك بابيجي إنكار تقول guriga gabadhi waa lagu tuntay lugiga gacan waa la jabiyay meel walba laga garaacay uur bay lahayd lagama xishoon gabar ahaan lagama xishoon Soomaalnimo lagu xishoon diin lagama xishoon birmageed ahaan lagama xishoon dhaqanka meel uu ka dhacay weliga ma maqashay dhaqankaas waa meel uu ka dhacay waa giyiga Itoobiya haysato waa jigjiga iyo ma صح إني سناي وادقتي أنا وأجاي أنا وادقتي وسحرالة يقول بدل لا قليو ما هاي بقولان كور رئيسي أيام بعدي ما هاي لكن هديت ونين معناها عراري أول قوة ولا يسكا دنا هذا لون ما بيشري وحي ربان بلقو سمين شري لكن ننك عراري وشاق عصب ولا لا يقف هذا فكر كافكر دقوان دمر كيسي عروتي سلويرة هي وشاق دينا إلي تاريخ كله أو Soomaaliyeed kuma hayna meel aan ahayn jidka waxa ku ka dhacay xitaa dadka dibadaha ka soo hadla family dadka yihiin baa la weerari jiray ama loo dili jiray ama loo soo xiri jiray ama loo fadeecayn jiray ama loo dhibaateyn jiray xitaa hadda ilmaha breed iyo meel hadii hilibkiinu iska soo galo waagart marka waa gobolkaas ay ka dhacday meel aan ku tahay oo taariikhda hostariga ay caan ka tahay baa laga soo minguuriyay nimankii minguurin jiray nimankii sameyn jiray inay meesha joogaan oo dadka ku sameeyaan oo lagu jirdilo oo laga tahriibiyo oo qofkii rabo waxay rabaan lagu sameeyo waa ognahay jigjiga yar in jeel xajeelogaadeen inuu Kismaayo ka furan yahay adna waa ogtahay adna waa ogahay dadka xogogaalka u ahanahay labadeenuba
okay dhaqankan jigjiga ma ahan Soomaaliya ma ku baqash waa ka xumahaan leenahay waxa dumarka iyo caruurta inay waxaan leenahay Axmed Madoow dumar iyo caruur la dilaa waxba ku tari maayaan seelogaadeen ba ku quusan leenahay qofkii tiisi gashta baa dhimanaya aad iyo aad marka waa ka xunaa walaal hore u dhici jirtay faraxteeti waa ogtahay gabadhiisii asagoo magaalada jooga waliba iyo inuu anigu meel joogay ma garanaye waa boqolaal gabdhood iyo boqolaal wiil baa jira oo sidaas lagu sameeyay waa ognahay marka waxa ka jira seelogaadeen inuu ka jira Kismaayo waa ognahay laakiin dowr waxba ma maalinteeda iyo waqtigeeda inba iska imaan doontaa insha Allah bil kariim ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay Ilaahay dibka hayna ka dulqaado maalin walba Kismaayo dhala ka soo wacaayo oo dabcarin adna luuqa lagu soo gala annagana boqolaal baan soo wacdo waxay leeyihiin dawladdu waa nagu soo daahda aad baad maasanta marka waa ka xunaa walaal waa ka xunaa السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم warwalaalow waxaan ugubka ah ee magaalada Kismaayo ka dhacay ee barmageydada iyo caruurta lagu dhibaataynayo ee ciidamadan Axmed Madoobe iyo Haraadiga New Police iyo Tigreega ay sameynayaan sidoo aragtaa waxaan arkaa ummadda lagu dhibaataynayo ummadda horumarkeeda ka taagan ninkan danahiisana la fahmi la yahay shisheeyaha dabadhilifka u noqday ummadii Soomaaliyeedna mid u dilo iyo mid u xiro iyo mid u qaxiyo ka dhigay in la iska qabtaan anigu aaminsanahay fikirkayga aad baad maasantahay halo walaalow aad iyo aad hana saalax walaashay soo dhawow hurdaan hurday hal dhan baa shaqaynayay hurdaan laga soo kiciyay gabar ooyeysa ay soo wacday ninkii Axmed Madoobe ahaa nin u shaqaynayo gacanyaro u ahaa oo lagu magacaabi jiray Caawir asagana ugu magacaawna wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ayaa markuu arkay fashilaada Axmed Madoobe iyo maamulkiisa naflacaariga ee baaba'ay ayuu wuxuu isu dhiibay ciidamada dowladda federaalka ee gobolka Gad xalayta waxaa lagu gureeyay gurigii uu deganaa iyo xaaska ay u deganeed minyaradii waxaa la jirdiray xaaskiisii waxaa la bilaqaystay dhammaan agabkii u yaalla gurigiisii dhaqamada meel ay ka dhaceen ma maqasho abo ani waan taas waan ku ogaaba meeshaas ani taas waan ku ogahay gobolka aniga nin gobolka shabeellada hoose ilaa Kismaayo ka soo jeedo oo dhulkaas ka yimid ah ma fahad waa gartay si fiican ayaan u garanayaa Axmed Madoobe maalin ku yimid iyo biriga inta ka dhacay soo waday maanta kaliya ma ahan maalin ku yimid ogaaskii biimaal oo sidoo ku sameeyay wuxuu sidoo ku sameeyay nin shiiqaala kubad kooxda oo qaljecla waa ogtahay intuu soo raacday ilaa Nairobi ilaa weli naqama kariyo weligiis oo sameey jiray asaga madaxaasna wuxuu ka soo miin guuriyay ninka la yiraahdo wuxuu ka soo miin guuriyay Cabdilay oo hadda jeelka waxa ku jiro oo Ethiopia صح وانا رج بدن رجي وكدنبيا احمد مدوبه waa rag xabad ku yimid wuxuu wili aaminsan yahay in adduunka xabad lagu xukumo war xabad Axmed ku imaan Axmed xabad ku imaan Kenyaatiga soo wado keena meesha xabad ku yimid hayta Kenyaatiga soo rabaa inuu dadka ku qabsado oo wuxuu aaminsan yahay in Kenyaati ay Soomaaliya qabsan karto Kenya Soomaaliya ma qabsan karto qorshahaasna waxaa gadaal ka riixayo nin la yiraahdo aadan barado caalamo ah aadan uusi u yaqaaniin Soomaalida marka dhaqankan anigu meel uu ka dhacay oo Soomaali ah ma maqasho weliga walaalow weligay ma maqal waa ii dhimanta Axmed Madoobe qaabku dadku una dhaqmo meel Soomaali loo dhaba Soomaali waa isdili jirtay weligeeday dagaal jirtay nimana isdili jiray maana haweenka iyo caruurta iyo barakicin guud waa ii dhimanta weli aad baad mahadsantahay marka Soomaali wata Soomaaliya halkaasaan maraynaa Soomaaliya haddaana waxaan isku meel uga soo dajisan haddaana waxaan gacan aan wada saarin haddaana dawladda ku taageerin haddaana waxaan aanan iska qaban maanta meesha ka socday arrinkan ugubka ah ee Axmed Xulaysta oo aanan meel uga soo dajisan oo aanan la dagaalamin oo aanan iska qaban Soomaali waxa weeye reer booyo ku noqonayna dhaqankan anigu ilaa 91 Soomaali dagaaladeedu waan joogay aqal lahaha waan ogaa dagaal siyaasadeedii waan joogay dagaal diimeedadii waan joogay waxaan weligay ma arag nin shalayta kula jiray oo ka tagay oo ku yiri meeshaan hadii wax soconay walaalo mar intaas ku fadhiyay inta aad dul qaadan karna waa dul qaatay waana xeeladaysanaya maxaad ilmihiisa caruurtiisa ka aysan
السلام عليكم. عليكم السلام محمد. وعليكم السلام. أرن أقبها ماشي يالو، أرن صومالي أنا نكو أرق بانا ماشي يالو، أرن على الحملها ماشي تهالو. قبل صوماليات ونينك يا أحمد للشقيني أحمد كتغي اسكت دي بالدولة الفدرالية أيا قرقيس حالة وحوصل عي نيكل يا خالد النيو بوليس كأهانجري قدرك ماشي اللي جيجيدات كلها يي قبر ديري آبها فول وهاي ويل كده فول يري دبعته ده مدرسة وجستي بقى هالك قبر كيسري نينكي بنا دبعته كوضو قبر دي ولا جرد لي أيضا أور له عنق يرى نوجنا يسو ويل أوديك عور دلنا ولا عرسان يا عاو هدو هالك بدنا تصل الله يستا أرنك عمله كده على ما أرتولجا. بسم الله. محمد علي أديك يوم عرفتها بالشدة الصوماليات بالسلامة يا وقابلة ووشي شلي أن كدي جاي ويا جمهورية دلنا برسبن كوالو بسود دولة صومالي دجا فرت والو بسود دولة وحا يوح كحب أحمد مدوب كوسما يا كسمايو بلدن أو صوماليات بأوجاسي ده أنت اللي دلا بعد مدح اللي وجلنا maxaan ku sheegay Soomaalidu way isdirtaa gobolada dhaxa weey meesha ugu badan ay calaada ugu badan tahay qorin nin wata oo raba inuu nin kale soo diray hadii gabadhi la dhalatay ama xaaskiisa ay ka hor timaado inay tabanaaniso oo aanu ku tufto oo iskaga dhaqaaqa dhacda wax gabar dilaya ama caruur dilaya ama xoolo dhacaya horta muxuu ahaa kismaayo iyo jeel ugaadeen ka hor Soomaali dadkeeda ma maqal ma maqlaysaa يا عبدي إلى دقن كيسيبك اسمها كسعبة Soomaalidu waa inay saa u fahamtaa meeshan dad aan lahayn baa ku soo duulay oo madax u yahay nin jirjiro la ah oo wajiyo badan war sawiradiisa la eego Soomaaliya ninkan wajiyadiisa fiiriya boqol waji buu leeyahay shakhsiyadiisuna sidaas weeyaan waa dulli waa maxaan ku sheegay al-ittixaad ومحاكم والشباب وراسكمبوني وحاس وذا ميل أديك يمعنقني يديك عبني ما أيو صومالي مارك هذا هذه مارك وكور تاجيه وما وحا أطلع الشيء صدق لبق قبيل مياه مصدق يصدق قبيل ورومي ذا واحد نسكت عارف كسماية ما أنت واحد لم يصحي قصة يستريب لم يصحي أوكي قرنبلة أدور رالية أدور رالية ومدة الصوماليات بان ربعنا اللو ذاكو شخصي تسمعي دادكو عذاب ايو دادكي الصومالي قلبيت وانتدي وسوق جيستان سوق جلين ربع وحير أديق رالية قادك وحير إيجاي ربح وكوسو قبرية كبح وحان ربعنا انتو سلاح كوسو عنا يكسو عاي سبكو يلبو كبح هيا بحي مالدر هذا دقيسو waxaan rabaa wad soo la wadaaga bal shakhsiga maanta kismaayaha haystay waxa Jubbaland nooga dhigaan marweyn wad soo la wadaaga aad bad ma santay la wadaag baamada in la baro weey dulli hay Quality drivers ride the change with Ola. wax yar baan wadaagayna Enjoy a great ride. madaxweynaha dawlad shakhsiga ka ahaayeen tacadiyadii deegaanka ka dhacay waxa ayna ka warbixiyeen sida markaasi loola dhaqmo maxaabiistani iyadoo ay sheegeen in si walaalayaal wax yar noqonaysa waa mid wallahi qofkii soo xidhay habeen walba waan u duceeyaa ilaahay ii soo diray habeen walba waan u duceeyaa dhageysto walaalayaal waayo taas waa wax ilaahay laga helo qof luusan oo iskaranaynin haddii lagu hagaajiyo wadadii waxay noqonaysaa waa mid wajaloogaadeen garanaysaa khaalis saxibullah shukri leh in lagu shukriyo ilaahay oo loo mahad celiyo talabaad waxaan ka bilaabay maxaabiista iyo qaabka nolol hayay anigu hoggaan ku-xigeenkii baan ahaa haddii shalay anigu aan ahaan lahaa anigu shalay haddii la ixiri lahaa oo shalay xukuumaddii ahayd shalay la ixiri lahaa aniga maanta dhibaato kale aniga iga muuqan lahay maanta la soo xidhay wax dhibaato ah haba yaraatee haba intii la ii yeedhay weli layma waraysan jirkaygii iyo bahalkii iyo wax la ii geystay iyo dhib isaga iska daa waa wax ilaahay lagu xamdiyo wixii shalay jiray wixii maanta jiray waxaan anagu sameynayay anigu waan sameynayay ilaahay dambi baan ka galay shacabkana dambi baan ka galay qofna uma abayeelin askar ha ahaato shacab ha ahaato maaragtay dad ha ahaato waxa weeyaan wax la ii diray waxaan anigu ku darsaday labadaba way jireen
labaduba way jireen aan anigu ku darsaday waayo anigu caruur baan horta markaygii hore anoo caruura ayaan ciidanka gaarka aan noqday qof sharci waxbarasho bartayna maanan lahayn markii hore taas waxay keentay dhib badan bay keenaysaa qofka hadduu inuu waxbarasho badan lahayn dhib badan ayay horta keenaysaa lafihiisii iyo ta ummadaba dhib badan bay u keenaysaa wixii markii lagu diro waa khasban inaad adigu wax ku darsataa anigu horta taangeysanayay yaana ka hadlayaa taangeysanayay maanta horta shacabka marka koobaad cafis baa weydiisanaya iyo xukuumadda marka koobaad xukuumadda iyo shacabkaba cafis baa weydiisanaya sida ay noola dhaqanto ee maxaabiista maanta xidhan loola dhaqmo ee kumishinka loola dhaqmo 24 saac toddobaad baa hilibka loogu qalaa cuntada caafimaadka dhakhaatiirta 24 saac anu haddaan kaan u geystay waxa weeyaan dhibkii dowladdii hore ka jiray tacadiga daraa waan geystay ninkan waxaa layaa shamaaxiye dowladduna inay cabsidana waan doonayaa tacadiyada aan geysto waxaa ka mid ah waa la amray hortanu waxaa la amrayay raggii mas-uulka ah ee meesha joogay yaa i amrayay waa kooshinadii weligii anugu iskayga waxba uma xukumin uma max banaanaanin la xukumo ma weligay ahaa hogaanka ayii iman jiray hogaanka shugri buu ahaa 24 saacna muunan dhammaan jirin amarku baan qaadanay biyaha gel haddii la dho waa gelnay wixii soo shugri wuxuu joogaa magaalada kismaayo khaalidna magaalada kismaayo joogaa ummadda soomaaliyeed khaalidne magaalada kismaayo ayuu ku sugan yahay uu joogaa waxaan rabaa billaah shacbiga soomaaliyeed la wadaago shakhsiga saa u arxan ka daran ee u xun ee ummadda saa u baabi'iyey ee ilma adeeradii saa u laayay anigu caruur baan horta markaygii hore anoo caruura ayaan caruur taangeysanayay maanta horta shacabka marka koobaad cafis baa weydiisanaya iyo maanta xidhan loola dhaqmo ee kumishinka loola dhaqmo 24 saac toddobaad baa hilibka loogu qalaa cuntada caafimaadka dhakhaatiirta 24 saac anu haddaan xanuunsado way dul taagan tahay 8 saac habeen way dul taagan tahay shalay ayna jirin waxa weeyaan kii aan anigu nabarka u geystay ima daaweynin buu yidhi kan anu nabar ku dhuftay tacadiga daraa xukumo ma weligay ahaa hogaanka ayii iman jiray hogaanka shugri buu ahaa 24 saacna muunan dhammaan jirin al-shabaab way ka baxaan kuninku waa disheen marka yaa waxba hadalkay ku daalin ninkani waxaa la yahaa shamaaxiye waa taliyihii new booliska ee magaalada xabsiga jeelogaaden kan kale waa sargaalkii xabsiga qaabilsanaa ee dadka xasuuqay 3 nin bay ahaayeen 3daba kismaayay joogaan waa kuwa dadka xasuuqayo ugaasyada dilayo dadka waxgaradka dilayo dadka baabi'inayo gabdhaha u dhacayo gabdhaha fuulayo ummadii cunayo marka ummadda soomaaliyeeday salaamu calaykum war walaalow waxaa kismaayo arrin ugu baa ka dhacday aan soomaali ka dhicin oo aan inta anigu dunida aan joogo aan weligay arag oo ah nin fakaday oo siyaasi axmed madow la shaqaynaya oo ka baxay